marka fahad lagee ka yimid fahad yaasiin soo shabaab ma ahayn ninka labaad oo shabaab soo ma ahayn fahad yaasiin oo xasana ما دتك حكومة ورا علمية راو علمية راو مهدية وبردو دي دقن أو إثيوبيانا ولا شيء قبا أمحارة قبا أسكرت ناقها قبان أو رسيف إريا جوجا أو حسن أو حسن وحي هاي قادم كي شغال قطب وكتجين شغال قطب قادم كودي هاي وكتجين نكي الله أون حريت شيء فيري رأوا حاسد يا رأ مقل رأوا حسن كلوين يا رأوا حاسد هاي أو حاسد يا أو حسن كلوين هذا اللي تلالوش بحشا الله صعبنا يا ضد كاني ليدر يولي مهلين ضل كاني ليدر يولي مهلين لقن هوغانشاه وسير لما عنانتانا يتلي لا حاله ايا قرح لمن لابي او لاي شعبكي وحا قرح ريديا ciidamada ammaanka waay ciidamada biliiska waay ayaga ka wakiila ayaga kamid ah saddex isbaaroon moota mari karin inta baabuur taariikh soo dhaafo inuu dad qarxiyo yaa loo sheegaya yaa warkaas yaa la baraa qarax 14 Oktoobar ka dhacay farmaajo ma ogeyn miya meesha la yiraahdo iyo dawladdu yaa loo sheegaya waa in lagu maxkamadeeyaa waa in lagu dacweeyaa waa in hadeer abukaatayaalkii wax bartay ay muxuu jaamacada ka soo baxaya waa in dacwo furaan oo intii qarax ahayd fiirikii Turkiga lagu laayay oo afgooye ku hoyday oo stationka afgooye saxdaaminki oo saddex nin oo biliiska waday ee markay ka dageen oo baawarka Turkiga ku dhuftay ma ogeyn ma dawladda taliyaha sheegid markuu leeyahay xajaar sheegid war waxa masha dawladda ma taale dadka shacabka ayaa la dhamayn dadka shacabka ayaa la dhamayn habraha baarlamaanka lagu darayna labada aqal bay iimaanin soo xarago wartuutu wuxuu rabaa aqoon wuxuu rabaa magaciisi wuxuu rabaa maxaa dadka kaga duwan tahay hadaadan aqoontii ciidan lahayn farxaan qaro la dil rabay lama dilay alxamdulillah rabbil alamin oo canugi naasaha weyna ta soo istaagay oo afayka biliiska waxa dulliga waxa soo kale dadkii la adayo jaamacada u socday waxba ka hadli maayo farxaan qaro inuu dhinta loogu talagalay waa biliis asaga la rabay inuu dhinto dadkuna way dhiman marka dadku inuu la aday rabaan oo ayagu dhiman ayagu waa soo gudbiyeen baabuurkan in la qarxiyaa la rabay ayaga keen biliiska meesha waxaas ammaan maaha muqdisho ha samaysato ciidan madaniya degmo walba ciidan madaniya ha samaysato sidii waagi Cabdullaahi Yuusuf ciidan madaniya ha la sameeyo xaafadaha ciidan madaniya ha la dhigo iyo u imaanin kuwa diriiska la iska ilaasheen wax shabaab leeyahay wax qarxinaa ma jiraan waa ayaga wax argagixisada wax qarxinaya ayaga way argagixisada waa ayaga taliya leexaale wasiir lama canaantaana kuwa qaraxa la rida dadka shacabka baabasha liida geeya hoteelada geliya يا وفهد ياسين iyo Umar Ilay iyo wixii lamida iyo Farxaan Qaroolahaasi waxaad yeelaysaan inta nafis gelisaan Muqdisho ciidan madaniya samayso nikale Sheekh Umar Faaruq ayaa wuxuu ka dhigay Xasan iyo Xuseen baan intuu tagay Qatar oo ka dhaadiciyay nin wuxuu ahaa saqaafad leh oo Carabiga aad u yaqaan nimankan Carbeed oo lacagta iska haysta awlaadtu batrool oo reer muxuu ahaa Qatar ayuu yiri waxaan nahay dhashii Xasan iyo Xuseen Soomaaliya ma iman karbaliina shafay ku aasay waa Carabi oo iska sirmeen Carabiga aad u yaqaan waa ayaa ka dhashay Sheekh Umar Faaruq markaasay Fahad Yaasiin oo aragto in shaydaan leh ayay wakiisheen Soomaaliya wakiil nooga tahay qadar ruuxeeda waa dacweynayna ayada waa dhibka Soomaaliya argagixisada terrorist oo dhan ayada xukunta qarax waa ayadaan qarxinaysa qadar baan qarxinaysa qadar baa dibka keentay qadar baa faahad dhashay qadar baa farmaajo keentay qadar baa finish keentay waxa soo dhan Umar finish iyo farmaajo iyo fahad iyo waqtigooda waa dhamaaday dadka Soomaaliyeed hay Muqdisho ciidan biliis la yiraahdo ma jiro nabad shirkudna ma jirto gudoomiyaalka degmooyinka gudoomiyaalka kala ka daba magacaaba wax dawlad leeyahay ma jiraan waxaas dawladna ma ahani oo ammaankiina ilaashada hadeynaa yeerin oo dadka jaamacadaha sida Professor Xasan iyo Xasan Sheekh oo kale iyo ha ka shaqeeyeen dad oo madaniya oo xafadaha ilaaliyo ciidana hubkiina la soo bax waxaas ma ahan ciidan Farxaan Qaroolo shabaab iyo Fahad Yaasiin oo shabaab ay war waxaas ciidan ma war waxaas ammaan ma war waxaas dawlad ma war waxaas waxba ma ninka 10 kun oo wiil ninka geeyay Itoobiya oo siiyay Tigray oo laba Tigray abgaaliye habar gidro kala waaye labada nin oo diriraysa
وهراب وكله فيري نكل إلى سياسة فرقة iyo maleysana maxay kala ahaayeen ilmahabreed ahaayeen labadood waana laba tigre oo eltreyan geeyo eltreyan wala orama hadda la qabanaya nin tigre ama amxara loo dhiba dalka waana la burburinaya Ethiopia Soomaaliya aan lagu daraya farmaajana waa fiidnada Soomaaliya hadda maxkamadda lagu furo